بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، حمدا يليق بجلاله وبكماله وبعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ولا ليال waan idin salaamay dhammaantiina meel kasta oo daafaha dunida ka joogtaan. waxaa idinku salaamay salaanta islaamka. assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. salaan kadib walaalayaal, waxaan doonayaa maanta inaan soo gudbiyo haddii aad dhashay ama aad ehel u tahay canug caasiya ama walad caasiya ama wiil caasiya ama gabar caasiya, waxay doonayaan ha noqdaan, oo doonayso ilaahay subxaanahu wa tacaala sifadaa xun inuu ka zuuliyo, uu ka baxo caasinimadii canugii, caaqnimadii uu ka baxo, uu noqdo qof baari ah oo waalidkiisa adeeco oo wax walba qabto oo wanaagsan inuu noqdo. haddaad doonayso waxaad qabsataa qowlkii ilaahay subxaanahu wa tacaalaa. balse intaanan sheegin qowlka ilaahay, aayaddaa barakaysan intaanan sheegin, waxaan kaa codsanayaa walaalkayga muslimka ay soomaaliyeed, walaashayda muslimadda ay soomaaliyeed, inaad igu taageertaan subscribe, like iyo share iyo commenti wanaagsan walaale soo bixi insha allah biidni illaahi tabaaraka wa tacaala. anigana waan tixgelin doonaa kommentiyadiina si kastooy ahaadaanba insha allahu tacaala. intaa haddaan oga gudbo intii yarayd ee dhexgeliska ahayd, waxaad akhrinaysaa walaal qowlkii ilaahay tabaaraka wa tacaala, aayadda qur-aanka ilaahay uu ku yidhi: acuudu billaahi min ashaytaani alrajiim, bismi illaahi arraxmaani arraxiim, إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. صدق الله العظيم. آياداas had walaal akhrinaysaa 11 goor baad akhrinaysaa, 11 jeer. waxaad ku dul akhrinaysaa aayadda biyo ama raashin, kadibna waxaad siinaysaa waladkii caasiga ahaa biidni illaahi tabaaraka wa tacaala. ilaahay idamkiisa canugii wuxuu noqonayaa canug baari ah intuu ahaa canug caasi ah, kadib wuxuu noqonayaa canug waalidkiisa adeeco intuu ahaa mid ku caasi garoobay waalidkiisa, kadib biidni illaahi tabaaraka wa tacaala wuxuu noqonayaa qof wanaagsan intuu ahaa qof xun, kadib biidni illaahi tabaaraka wa tacaala. waxa meesha yaallo kalaamullah weeye, kalaamuraxmaan weeye, kalaamulmannaan weeye, kalaamullaahi casa wajalla weeye. ta'hiir inuu leeyahay nin walba oo iimaan leh oo muslim ah wuu og yahay inuu ta'hiir leeyahay kalaamullah. kalaamka ilaahay baad ilaahay ku barinaysaa, 11 jeer baad aayadda akhrinaysaa. qof walba wuu awoodi karaa, 11 jeer baad akhrinaysaa. raashinkii ama sharaabkii baad ku dul akhrinaysaa, kadibna canugii caasiga ah baad siinaysaa, kadibna biidni illaahi tabaaraka wa tacaala wuxuu isu bedelayaa nin baari ah intuu ahaa nin caasi ah, kadib gabar baariyada intay ahayd gabar caasi ah, kadib biidni illaahi tabaaraka wa tacaala. intaasaan jeclaystay walaalayaal inaan idinla wadaago. fawaa'idda ayaan kusoo gudbiyaa janalkan qur-aanka kariimka, fawaa'idiisa, asmaaullaahi alxusnaa fawaa'ideeda, iyo weliba adkaarta adciyada oo nabiga ka soo arooray calayhi salaatu wassalaam. sidaa darteeda walaal, haddaadna taageerayso nagu taageer janalka, inaad subscribe tiraahdo, liketa inaad riixdo, inaad sii sheer garayso,
inaad ka qayb qaadato janalka horumarkiisa annagana arrintaa dhiirigelin bay inoo noqonaysaa biidni illaahi tabaaraka wa tacaala. waan u ducaynaynaa qof kastoo laayta ku dhufta ilaahay muraadkiisa khayrka inuu ilaahay midigta ka saaro, taasaan ilaahay uga baryaya. qof kasta oo janalka sabskraib yiraahdana ilaahay inuu naartiisa ka xoreeyo jannadiisana ugu bishaareeyo, taasaan ilaahay u weydiinaynaa ilaahay tabaaraka wa tacaala, wuuna helayaa biidni illaahi tabaaraka wa tacaala muraadkiisa khayrka adduunya aakhiraba inuu ilaahay midigta ka saaro insha allah.